السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada arday maanta waxaan qaadanaynaa casharkeeni inoogu horeeyay oo ah lesson 1. lesson waa casharkan waxaan ku eegi doonaa shopping phrases. shopping phrases waa jumlado aan adeegsano inta badan marka aan wax iibsanayno. shopping af Soomaali ahaan waxaa laga wadaa dukaameysi ama wax iibsasho. phrasesna waa jumlado, marka waa jumlado aan adeegsano marka aan wax iibsanayno. waxaan ku bilaabaynaa nambarka koowaad. Sell me a shirt please. Sell me a shirt please. fadlan iga iibi shaati. Sell me waa iga iibi, me waa aniga. Sell me iga iibi ama iga gad. A shirt shaati, please fadlan shaati iga iibi. markaan rabo inaan dhaho iga iibi qalin oo kale waxaan leeyahay sell me a pen please. fadlan iga iibi qalin. halkaas oo ay ku qoran tahay shirt ayaad waxaad ku bedelaysaa pen, marka waxay noqonaysaa sell me a pen please. fadlan iga iibi qalin. nambarka labaad. How much do you owe me? How much do you owe me? Imise ayaad igu leedahay. How much meeqo. Do you adiga, you waa adiga, owe me ayaad igu leedahay aniga. Me-na waa aniga. Owe waa kulahaansho. waxay noqonaysaa how much do you owe me? Imise ayaad igu leedahay aniga. nambarka saddexaad. How much do I owe you? How much do I owe you? Imise ayaan kugu leeyahay. hadda aniga ayaa wax kugu leh. markaasoo kale waxaan leeyahay how much meeqo do I aniga owe you ayaan kugu leeyahay adiga. nambarka afraad. Tell me the price. Tell me ii sheeg the price qiimaha shayga uu joogo ii sheeg. Number 5. How much is this? How much is this? Kan waa meeqo. This waa tilmaan. tilmaantaas waxaan adeegsanaynaa marka aan tilmaamayno hal qof ama hal shay oo inoo dhow. tilmaamaha way kala duwan yihiin, marka insha Allah ayagana waan baran doonaa. nambarka 6. Where is the changing room? ama where is the fitting room? away qolka wax la iskaga soo bedelayay. changing room ama fitting room waa isku mid. waa qolka aan wax iskaga soo bedelno oo aan tusaale ahaan marka aan shay iibsano oo aan rabno inaan isku cabirno waxaan dalbanaynaa qolka la dhaho changing room ama fitting room si aan shaygaas iskugu soo cabirno ama aan iskugu soo jumeyno. waxaa qalad ah marka inaad dhahdid where is the changing fitting room. hal mar inaad isku qabatid ayaa qalad ah. kaliya mid un ayaad adeegsanaysaa. ama waxaa leedahay where is the changing room ama where is the fitting room. sidaas ayaad u adeegsanaysaa. nambarka 7. Please give me a discount. Please fadlan give me a discount. qiimo dhimis ii samee. discount waa qiimo dhimis. Give me waa isii. Give me a discount. qiimo dhimis isii ama ii samee. nambarka 8. Do you take cash or credit cards? Do you take ma qaadataa ama ma qaadatiin. maxaa yeele you marna waa adiga marna waa adinka. hal qof markaa la hadlaysid waad isticmaali kartaa. sidoo kale dad badan markaa la hadlaysidna waad adeegsan kartaa. marka waxaa leedahay do you take ma qaadatiin ama ma qaadataa cash lacag cadaan ah or ama credit cards ama kaararka bangiga ay bixiyaan oo aan lacagaha ku qaadano. kuwaas ayaa waxaa loo yaqaanaa credit cards. cards waa kaarar markay badan yihiin s ayaa la socoto. hal kaar markuu yahayna waxaa leedahay card oo kaliya. nambarka 9. It doesn't fit me. It doesn't
fit me ilama eko. Tusaale ahaan markaa rabtid inaad dhahdid hal shay oo aad iibsatay ilama eko oo kale markaa rabtid inaad dhahdid waxaa leedahay it doesn't fit me ilama eko. laakiin markay yihiin wax badan waxaa leedahay they don't fit me. They don't fit me ilama eko. maxaa yeele they waa iyaga. it markaad jamac ka dhigaysid waxay isku bedelaysaa they. doesn't-na waxay noqonaysaa don't. marka they don't fit me waxay noqonaysaa ilama eko. casharkan halkaas ayuu ku egyahay. wuxuuna ku saabsanaa shopping phrases oo ah jumladaha aan adeegsano marka aan wax iibsanayno. waxaan rajaynayaa inaad fahanteen.